wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah garoonka kubadda cagta ee magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd si rasmi ah uga daafurtay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee naadiyada heerka koowaad ee gobolka Hawd. Tartan ciyaareedkan ayaa muddada u socda waxaa ka qayb gali doona 8 kooxood oo ah ciyaartoyda naadiyada heerka koowaad ee ka dhisan degmooyinka Balligubadle, Balecabane, Sayla iyo Gumburaha ee gobolka Hawd. waxaana munaasabadii lagu daafurayay tartan ciyaareedkan ugu horeyn ka hadlay isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ee gobolka Hawd, Mustafa Yuusuf Maxamed, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay tartan ciyaareedkani. waxa maanta oo ay bishu tahay 1 bishii 11 2021 aynu daafuraynaa tartanka kooxaha heerka koowaad ee gobolka Hawd. tartankaas oo ay ku loolami doonaan 8 kooxood. waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ugu horeeya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo tartankan uu inoo maalgeliyay. tartankaas oo ka socda gobolada Soomaaliland oo dhan. waxaan u mahadnaqayaa agaasimaha guud barasaabka gobolka Hawd, maayarka oo isaguna gacan naga siiyay barasaabka. aad iyo aad baad u mahadsantiin dhamaantiin. waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliland, Khadar Jilaal Jaamac. waxaan ku sugannahay gobolka Hawd magaalada madaxiisa Balligubadle. aad iyo aad bay sharaf noogu tahay ka xiriir ahaan annagoo maalin saddexaadii ku sugnay anagii agaasimaha guud gobolada bari ee Sool iyo Sanaag. isla maantana aan ku sugannahay gobolka Hawd magaalada madaxiisa Balligubadle. taas waxay ku tusaysaa in wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ay u tahay sharaf in ciyaarihii Soomaaliland meel kasta ay gaareen. waxa iyaguna halkaas ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Balligubadle Saalax Maxamed Idris iyo maayar ku-xigeenka degmada Balligubadle Cabdirasaaq Xasan Aadan. annagu haddaan nahay maamulka degmada Balligubadle waxaanu halkan ciyaarta u wadi doonaa si qurux badan. anoo jooga caasimadda gobolka Hawd ee Balligubadle galabta laga daafuray tartan ciyaareed taasoo ay bulshada iyo dhalinyaradu aad iyo aad ugu diirsadeen. kadegmaha farxad aad iyo aad u weyn noo tahay inaanu ka soo qayb galo furitaanka ciyaaraha degmada. gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Aydiid Yaasiin. kulli maanta waxaan halkan u joognaa oo furaynaa waa heerkii koowaad ee gobolka Hawd. waa 8 kooxood waxa tartami doona insha Allah haddii Allah yiraahdo. waxaan aad uga mahad celinayaa isku duwaha ciyaaraha iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka iyo agaasimaha oo qayb libaax la ka qaatay dhaqaal ahaan iyo dadaal ahaanna iyagu isxil saaray. insha Allah kulli waxaan leenahay jazakallahu khayr wa horumar. dhalinyarada ciyaaraysana waxaan leeyahay kulli anshaxay iyo kubaddu wanaagii ay lahayd yagna inay muujiyaan ayaan ku waaninaynaa haddii Allah yiraahdo. waayo waa wax soo kordhay weeyaan hore loogama qaban jirin horyaal. aad weyn bay noo tahay wasaarad ahaan in maanta aanu ka fulino magaalada madaxda gobolka Hawd ee Balligubadle tartankii horyaalka kubadda cagta kooxaha heerka koowaad. waxa kale oo iyaduna sharaf ah in gobolkan ay degmooyinkiisii ay tartanka ka qayb galayaan. waa Balecabane, waa Gumburaha iyo Sayla oo iyaguna tartanka ka qayb galaya. waa arrin sharaf weyn ah. annagu wasaarad ahaan waxaan u xil saaranahay dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Hawd. waxaan isleenahay wax badan baad ku soo celiseen. waxa iminka socda mashruuc aad u weyn oo ah garoonkii kubadda cagta oo uu ku baxayo lacag 600,000 oo dollar ah. waa hawl aad u weyn waxaanu ka fulinaynaa oo ay wasaaraddu maalgelisay tartankan kubadda cagta ee ay 8 kooxood ka qayb galayaan. lacagtaasi waxa ay ka soo baxday waa cashuurtii ummadda, cashuur bixiyaha ah oo lagu soo celiyay dhinacay wasaaradda ciyaaruhu arrimaha u xil saarnayd. sharaf weyn bay noo tahay. maxamed Shiciir Axmed iyo Cabdinatiib Dayib Cismaan, TV qaranka Soomaaliland, magaalada Balligubadle.